ninka halkaa idin kaga muuqanaya eedeysana maxamed cabdulaahi ayaa lagu magacaabaa wuxuuna jirdil xoogan u geystay gabar uu isagu qabay islamarkaasna baraha bulshada ayaa daawadayaal saacadihii ugu dambeeyey laga hadlayay qof walbana wuxuu rajeynayay in ninkani laamaha amniga gacantooda kusoo dhaco hasaatee ugu dambeyn uu kusoo dhacay. daawadayaal waxaan ku dul istaagi doonaa qaybkii ninkan lagu soo qabtay iyo gabadhan isagoo qabay waxyaabaha dhex maray marxalada guud ayaan ku dul istaagi doonaa. dhammaantiin soo dhawaada muuqaalka laga dhaw sii share janaalka hadaa ku cusubtana subscribe leh si maalbaad waa shughulka ugu dambeeya guudaan dalka iyagoo degdeg ah. waa tahay gabadhan daawadayaal halka idin kaga muuqanaysa kaaha cabdulaahi ayaa lagu magacaabaa dalka Netherland ama Holland u taqaanid ayay ku dhaqaneed. ninkan halka idin kaga muuqanayo eedeysana ayay daawadayaal isqabeen sanadkii hore iyo isguursadeen siday sheegtay way ka noqotay haatan ayay markale dib ugu soo noqotay waa seen galmaada hal gabar u joogtay oo xanuunsan. gabadhan ayaa daawadayaal marka sheegaysa in ninkan marka hore arxan darada iyo naxariis darada ay ku aragtay ay ka bilaabatay markii koroonkadan cadday kasoo degtay halkaasoo baasboorada kaga qarsaday isla markaas boorsooyinkii ay wadateena uu halkaas kaga tegay. waxay sheegaysaa marka ay soo raaceen iyadoo yaabsan ayuu wuxuu sheegay in uu sarbareys ugu dhigayo in guri gooni u diyaariyey isla markaasna magaalada ka fog. dooda ayaa halkaa ka bilaabatay waxayna sheegtay inay arrintaasi aqbaleen isla markaasna goorsii horeysana gabar iyada ka weyn oo si weyn ku dhaqan ayaa arrintaas xalisay oo markii dambena ninkan wuxuu ku adkaystay inuu sidaa uu sameynayo magaalada meel ka fogna uu geynayo. gabadha ayaa sidoo kale codsatay dhankeeda inay doonayso in ehelada laga dheereen ee doonaysana qoyskeeda aagii ka agdhowiyeen inay degto. doodii ayaa dheeraatay ugu dambeyn wuxuu kala dhiciyey in ninkani xaafad la yiraahdo Mumtaaz oo Daarusalaam ka tirsan inuu dejinayo. ugu dambeyn halka ayaa la degay waxayna gabadha oo horeys la yeeshay bargaara ku sheegtay in ninkani ay maaru weyso inuu kontrooliyo isla markaasna taleefanada soo dhacayada iyo wixii wacdo ka warhayo sidoo kale inay sheegayso xataa meel uu kontrool ka gaaray dharka iyada ay qaadanayso inuu isagoo ka warhayo. sidoo kale waxay sheegtay markii magaalada aadeysana inuu isagoo sidoo kale raaci jiray. daawadayaal ugu dambeyn marka waxaa soo baxday in ninkani gabadhan gacan qaad uu ku bilaabo ugu dambeyn wajigeedana sida iminka dhammaan baraha bulshada ka aragteenna uu yeelay muuqaal marka baraha bulshada laga arko ninkan gabadha jirdil xoogan u geystay waliba qeybaha hore jirka sida wajiga oo baraha bulshada laga arkay ayaa ugu dambeyn marka sababtay in ninkan laamaha amniga raadiyaan ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigo. waxaana lagu magacaabaa sida iminka halkaan aad ugu jeedaan maxamed cabdulaahi cali haatanna laamaha amniga gacantooda ayuu ku jiraa ugu dambeynna maxkamadda ayuu kasoo muuqan doonaa. waata daawade dhamaadka haddaa soo gaartan waa kaaga mahad celinaya mar kale janaalka haddaa ku cusubtana subscribe leh muuqaalkana sii share